Xogayaha guud ee Naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Hagan Maxamed Aweys Moha ayaa xalay waxa uu shaaciyay inuu xilka iska casilay. Xogayihii hore ayaa muddo dheer waxa uu ka mid ahaa maamulka kooxda Naadiga Hagan, isaga oo markaasi guulo waaweyn la gaaray xilliyadii uu joogay. Dhammaan kooxaha Hagan ee ku ciyaara sida basketka iyo sidoo kale handball-ka iyo kubadda cagta ayuu waxa uu ahaa xogayaha guud ee kooxdan, waxa uuna intuu joogay horumar weyn ka sameeyay Naadiga Hagan ee Booliska Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd basketball-ka iyo sidoo kale handball-ka iyo kubadda cagta, iyo sidoo kale magaca kooxda Hagan inta ay huwan tahay. Waxa uu xalay shaaciyay inuu markaasi ka tagay dhammaan asxaabta. Waxaan halkan ka caddeynayaa in aan ka tagay muddo dheer kadib oo aan ahaa xogayaha guud ee Naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ama Naadiga Sports-ka ee Booliska Soomaaliyeed, waxaana soo gabagabeeyay shaqadii aan ka hayay naadiga. Waxaan rabaa in aan halkaa ku macsalaameeyo ciyaartoyda, maamulka iyo taageerayaasha Hagan oo aan muddo dheer ka wada tirsaneen. Muddadaasi aan xogayaha guud ee naadiga ahaa, waxaa ii suurta gashay inaan naadiga guulo la gaaro muhiim ah, kana qayb galaan tartamo aad u sarreeya haddii ay ahaan lahaayeen tartanka Africa CAF Champions League iyo sidoo kale tartamada kale oo qayb ay ka yihiin horyaalada kala duwan. Sidoo kalena waxa uu si weyn ula dardaarmay gabdhaha kubadda kolayga iyo gacanta iyo wiilasha kubadda gacanta iyo kubadda kolayga iyo dhammaan ciyaaraha fudud oo qayb ka ah, kuwaasoo iyagana guulo waaweyn kula gaaray. Waxuuna kula dardaarmay in markaasi ay sii wataan shaqadooda, ay markaasi guulo kooxda u keenaan, una rajeynaya inay mustaqbal aad u sarreeya ka gaarto Naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed. Waxa uuna u mahadceliyay dhammaan muddadii uu bahda Hagan ka tirsanaa, shaqadii quruxda badneed u hayay dhammaantood, maamulka, ciyaartoyda iyo sidoo kale cid walba oo gacan weyn ku siisay horumarinta kooxda kubadda gacanta, basketball-ka iyo sidoo kale handball-ka iyo ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta oo kale. Sidoo kale waxaan cafis ka dalbanayaa cid walba wax iga tabanaysa ama aan wax ka haleeyay muddadii aan ahaa xogayaha guud ee naadiga. Waxaan u rajeynayaa Naadiga Sports-ka ee Booliska Hagan mustaqbal wanaagsan insha Allah. Miyay tabi doonaan Maxamed Aweys Moha maadaama naadiga uu muddo dheer u ahaa xogayaha guud ee kooxda, waxa uuna door weyn ka qaatay horumarinta ciyaaraha kala duwan ee naadigan ay ciyaarto. Haddii uu booskan baneeyay Maxamed, yaa u qalma inuu markaasi noqdo xogayaha cusub ee kooxda? Waxaa laga sugayaa Naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed in ay magacaabaan mid ka mid ah mas'uuliyiinta qaban doona booska uu baneeyay Maxamed Aweys Moha, oo ka mid ahaa laf-dhabarta Naadiga Hagan, isagoona hore u soo noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsaneed ee kubadda gacanta u ciyaarta Naadiga Hagan. Guulo badan la gaarsiiyay intuu xogayaha ahaa iyo sidoo kale intuu ciyaaryahanka ahaa. Kooxdan waxay ahayd kooxdii ugu wanaagsaneed ee horyaalka dalkeena Soomaaliya ka ciyaaraan inta uu ku guda jiray saaxadda kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya.